salaadiinta cuqaashi iyo waxgaradka ka soo jeeda beesha koonfurta Hargeysa degta ayaa waxay taageereen go'aanka uu musharax Kijaande ka qaatay khilaafka xisbiga kulmiye kadib markii uu qaadacay shirweynaha xisbiga kulmiye. Salaadiintani ayaa waxaanay sidoo kale madaxweynaha iyo hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye u soo jeediyeen in shirka dib loo dhigay isla mar ahaantaasina khilaafka la xaliyo. oo nina aanu arrinka maroorsan nina arrinka inoo marsan waxa arrinka maanta ka taagan yahay waa kulmiye xisbiyadii kale maaha kulmiye waxaanu ka codsanayna oo madaxda iyo madaxweynaha iyo inta wax garadgaba ka codsanayna in arrinka xal lagu sameeyo asagoo nina lagu xadgudbay nina aan lagu xadgudbayn in xal lagu sameeyaan anagu jecelna horta aad iyo aad baanu taa jecelnahay haddana ila tartan wax umadu ay aqbali karaysa maaha waxa weeyaan waanu taageersanahay murashax Kijaande sidoo uu qaadacay ka qaybgalka shirkaasi ayaanu ku taageersanahay madaxweynahana waxaan uga digaynaa xisbigii kulmiye gacantiisu ku burburiyay wixii ka yimaada halkaasna isaga mas'uuliyadeeda ay dhabarka u saarantay tartan gudihiisa laga galay oo laba nin ay ku kala hadheen cid ma jiro waxay isla soo gartaan beeruhu ee la waafeeriyo ayuunba kursiga nin loogu caleema saari jiray waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne inaad cadaaladda ku soo noqoto oo aanu maanta nahay cidda xaq u leh inay diiwaanka siyaasadeed dhigayo inuu kursiga maanta ku fadhiisto sidii lagugu tumay ee lagugu galbiye lagugu fadhiisiyo marka madaxweyne anigu fariintan kuu soo dirayaa waxa weeye xisbiga kulmiye waa guri weyn oo ummad badan hadhsanaysay raggii aasaasay ee ku liibaanay baad ka mid ahayd ummadii guriga ku xeerayd ee hadhsanaysay ee magaca lahayd khilaaf weyn baa ka jira khilaafkuna wax sahlan maaha waa ka caalamka oo dhan burburiyay hasahashan khilaafka ka jira loo joojin maayay taagan tahay maalin baana ka hadhay muddadii bisha 10keedii 4 xubnood oo ku xaq leh oo agtaada miisaan kale oo qiimo kale oo raggii ku soo garab taagnaaya oo mas'uuliyiintiya oo aasaasayaashii xisbiga ah in maanta loo joojin waayo la yiraahdo dib loo dhigi maayo shirka waa ay andar weeyay. Arrintani waxay ku soo beegaysaa iyadoo maalintii shalay toolo ahayd ay salaadiin ugu baaqeen xisbiga kulmiye in dib loo dhigo shirka ay qabsanayaan maalinta Salaasada waxaana lagu ballansan yahay in maalinta Salaasada ay nagu soo foodalay bisha 10ka bisha November la qabto shirweynaha xisbigaasi iyadoo walina ay garabyada xisbiga kulmiye laba dhinac u kala fadhiyaan. Yacquub Saciid Kuuriya, Somali News TV, Hargeysa.